maadaama ay ka muuqdaan adeegyadii la qabtay iyo impact-kiiba uu ka muuqdo casharada laga baran karo Gabiley anu waxaan oran karaa anu deesduwan soo haayo wax badan baan ogahay marka ma sha Allah dee tusaale fiican baa u tihiin in aad dhakhaatiir wax soo baraysaan oo maanta waxna ka bixinaysaan si ay gobolkii wax u taraan waa wax weyn oo runtii waxa qabo waxaan xasuustaa dee ajnabi baa la joogi jiray maanta dee wuxuu bedelayaa dhakhtarkii ajnabiga ahaa uu bedelayaa waa wax weyn weeye waa asad weey waxa kaloo dee cashar lessons learning by special needs ka sameeyay iyo technical schools ka muuqda waxa markaa caafimaadka igu soo dhacay aniga wixii kelmadii equity la oran jiray resource-kii la hayay oo dadka si qof walba baahiyaha gaarka u qabo dadka kale loo soo siibay quality-gu waa in la wada qaybiyo laakiin equity waa ka special need ka qabana baahi buu qabaa ka kale bas u baahanna bas baad u geysay oo waa buur marka runtii equity-ga caafimaadku concern weyn buu ka leeyahay waa waxyaabo ugu weyn ee laga hadlo Gabiley runtii dee halkaas ay taabatay tusaale aad u wanaagsan weey keejiga dawladda waxa tagay intii baahnay ninkii waxa haystay keejiga bareefadka aad caruurtiisii geeyay marka waxaanu isku daynay inuu la leefal noqdo kii muxuu ahaa bareefadka ahaa oo ilmihii yar isagoo buul degan inta basku hortago buulkii ka soo qaado oo iskuulka geeyo wax la soo baro musaacihii la soo siiyo haddana isla halkii ugu soo celiyo waxa hadiya jeeran ka fikirana inta yar caadiga la qabsaday inaan lagu ekaan mar walba wax la soo kordhiyo xanaanooyinkii shaqaaleeyni way iska fadhiyaan hooyada iyo ilmaha yar loo keenay u adeegaya marka waxa weey waxaan sameeynay in magaalada dhexdeediina xaafad walba xanaanadii ku taalay ay waxa weey tiibka loo qaybiyo oo guriyaha ugu tagaan door to door oo hooyadani inay xanaanada ku soo xidhantana la baro iyadoo gurigeedii joogtana xaalad cid walba cid baa hormoodu ah oo deel ay daba galaan marka inay wax badan degmooyinka ay idin ka caawisaan laydin kana daydo runta marka leega weyna jiraan wax laydin kaga dayda waana taana idin ku ambaleenaya runtii presentation qurux badan oo aad u muuqdo ahaa TV aad iyo aad u sensitive oo taabteen waabad noo daarteeno aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa Maayir adiga iyo teamkaaga iyo golahaaguba sida aad wasaaradda caafimaadka ula shaqeysaan haddana gobol ahaan wuxuu noqonayaa gobolada ugu cisbitaalada badan wadanka marka gobolka Gabiley la yiraahdo 4 cisbitaal oo shaqeynaya ayaa ku yaala marka gobolka Maroodi Jeex laga reebo gobol 4 cisbitaal oo shaqeynaya ku yaalaan ma jiro xagga kalena de wuxuu leeyahay culayska